daawadayaal ku soo dhawaada idaacadda codka Soomaaliyeed Ramadaan Mubaarak barnaamijkan oo taxanaheennii ka mid ah dahka fiidida dulmiga meesha ka jira maanta barnaamijkan waxaan isku barbar dhigayaa waxa la yiraahdo warlords dictatorship and leadership qabqable dagaal kaligi taliye iyo hogaamiye aan ku horeeyo qabqable dagaal iyo waxa ay caalamka siyaasaddu u yaqaanaan. The warlord is a ruler able to exercise military, economic, and political control over a sub-national territory. Warlordku ama ninka dagaalka qabqablaha la yiraahdaa waa maamule waa loo quri waayay inaga hogaamiye loo isticmaalo ruler baa loo isticmaalay waa maamule isku dubaritay ciidan dhaqaale iyo siyaasad uu ku amar ku taaglaynayo gacantiisa isugu keenay oo uu ku maamulayo meel yar oo kooban ama maamul goboleed subnational territory with a sovereign state taas oo wadan la aqoonsan yahay ku dhex taala wadan nin gacan ku haya maaha qabqabluhu sida tusaale ahaan Hegelanka oo kale due to the ability to mobilize nimankaasi waxay ku caan baxeen oo lagu yaqaanaa la yiraahdo qabqablayaasha dagaalku inay isku dubaritaan loyal armed forces ciidamo iyaga u daacada. These armed forces usually consider militias ciidamada u daacada ah waxa badanaa loo yaqaanaa inay yihiin militia beeleed ama ciidan heega ah. Are loyal nimankaasi waxay mar walba ay taageerayaal u yihiin to the warlord qabqablaha dagaalka rather than to the state regime. Intay dawlad u noqon lahaayeen ciidan ummadi leedahay oo dawlad la shaqeeya ama ummadooda difaaca waxaana loo adeegsadaa caburinta iyo cagajuglaynta ummadda kale ee waddanka ku nool ee cashuurta lagaga guranayo. waa caalamul siyaasa aynu ka hadalno waxyaabaha lagu garto qabqablayaasha dagaalka ama ragga niminka horkacaya heegada sida Muuse Biixi iyo wixii wacagaha ku qaataba waxay horta ku yimaadaan marka hore meesha waa inuu dagaal sokeeya ka dhaca central government-kana uu collapse ku dhaca dawladda dhexe waa inay burburtaa meel nabadgelyo ah qabqable kama soo baxo marka koobaadba waxay u badan yihiin low rank officers saraakiil darajo hoose leh ama saddex diglayaal ama dadkii diyaaradaha ka shaqayn jiray ilaalintooda. waxa lagu gartay ugu badani waxa weeyaan ballan furka waa saddexdii calaamadood ee rasuulku munaafiqiinta ku sheegay. waxay ka faa'iideystaan burburka dawladda dhexe ay kaga dhacday meesha inta badan waxay ummadooda geliyaan ama dadka ay ku amar ku taagleynayaan ay ku haystaan ciidanka maleeshiyad beeleedka ee heegaysan dagaalo macna darro ah sida kii Tukaraq iyo kii kasii horeeyay ee ka dhacay gobolkaas Cayn. waxaa mar walba dadka loogu cagajugleeyaa nabadgelyada ilaaliya taasoo macnaheedu tahay sidaan anigu cashuurta usii qaadan lahaa ha lagu dadaalo. cult personality maadaama aanay haybad lahayn qabqablayaasha dagaalku ama warlordku TV-yada iyo idaacadaha iyo mashiinada propagandada iyo dacaayadda rakhiiska ah ee u shaqeeya ayaa u sameeya shakhsiyad looga dhex sameeyo TV-ga iyo sawirada wareegaya ee muuqaalka ah. waxaa lagu gartaa wax walba iyaga yaqaana sagaal uge waa 2 milyan iyo 100 haddii aafa dhacdo isaga soo boodaya waa ay siir kumaydha haddii meel shaga ah ay soo baxdo isaga ayaa qaadanaya. waxaa lagu gartaa low intelligence inta badan ma maskax badnaa wayna aqoon yar yihiin. waxaa lagu gartaa warlord waxa lord kelmadda lord waa ninka landlord waa ninka waxle lordku wax ilaahay gacanta u geliyay. waxaa lagu gartaa inay ka taajiraan ay warlord ku noqdaan deegaanka ay yimaadaan. qolo walba oo deegaanada Soomaalida ama maamul goboleedka joogta waa inay xaggeeda ka fasirataa si ay u aragto si arrintu isu qabanayso. taariikh ayaa loo sameeyaa aanu markii hore lahayn laakiin aan meel la gaarin ee 30 kilomitir dhex wareegaaleysata kala irdeen bulshada ay ku dhex nool yihiin oo ay kala irdeeyaan waayo marka hore shakhsiyad uu ku soo baxo oo meel u taalay ma jirto. dacaayad rakhiis ah oo aad u tiro badan oo marka lugta la qabto ku faya. haybad la'aan ayaa ka muuqata dafiraad iyo muran joogta ah halkii laga keen lahaa policies and procedures aragtiyo ama vision ama halkii dadku ay halka taagan yihiin ay hore uga sii dhaqaaq lahaayeen. afka qalaadna waxa lagu yiraahdaa warlordism syndrome oo waa xanuun. personal controlling population
ummadda oo dhan maadaama aanu qofna aamini karayn intaa yaroo isku qorada yihiin mooyaane inuu xukunka gacantiisa kusoo ururiyo ilaa 5 litir ee magaalada Hargeysa ka baxaya inuu isagu saxeexo oo aanu seexan ee aanu nasanna dib u dhac dhaqaale oo bulshada ku yimaada fakhri wax la'aan 70% maanta wadanka dadka ku nool heegadu ay gacanta ku haysaa waa qadaama dhargaan nasiib darrada cagaf-cagafyo iyo digdig ayaa meelihii yaraa ay dhisteenna kuwa kale oo bararay ay jirsiinayaan delusional in iyadoo la soo jeedo la riyoodo qaranka horumaray kaarbad casba lagu soo dhaweeyay dowladaha caanka ah baynu ku jirnaa waa layna majiiranaya fakhri ummadda ku dhaca maadaama wixii yaraa ee laga ururiyay aan marka horeba ka go'aynin ee cashuurta ahaa u jeebka ku dhacayo dad tirsan oo meel wada jooga bajin iyo propaganda isa saaran oo mar walba ah koonfur buu socdaa koonfur ayaa looga yeedhayaa sidii ay idigu muuqatay wasiirkii propagandada Boobe Ducaale uu lahaa Soomaaliya lacagtii lagama dhaafin ee Dr. Pele oo kaliya ayaa beenta meelaan cirkana ahayd dhulkana ahayd durbaanka garaacaya waxaanu ku leenahay adigu 30 kilomitir oo kala jeexan oo cagaagan ayaa durbaan shaydaan ka garaacaysa dhammaanna ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda reer waqooyiga waxaan u sheegaynaa inay galaan IMF-ta website-keeda ay Afrika ku dhuftaan ay eegaan Somali Debt Relief halkaasay ku caddahay lacagtii Soomaaliya laga saamaxay propagandada noocaas ah ay dhowdahay luqabashadeeduna waxa wanaagsan in laga maantoobo oo niman dadka dad dhaama oo propagandada u faafiya Boobe inay soo kaxaystaan waxa kamid ahayd dhalinyaradii Soomaaliyeed ayaa waxaan ku dhex jirnaa qabqablaha iyo dadka uu garbaha ku qaato dhalinyaradii Soomaaliyeed koonfur iyo xamar bay u carareen oo laac looga luray dhalinyaradii joogtay Soomaaliyeed waqooyiga waa adiga idinku kala soocay 12,000 ee heegada ah shaqaalaha ka dhigtay intii kalena ay badaha iyo xamar aadaan dani waa seeto ayay Soomaalidu tiraahdaa calaamadaha kale shaqo la'aanta ayaa kamid ah ee lagu garto meesha qabqabluhu uu gacanta ku dhigo waxaa kamid ah political isolation tamaanta taagan inay naxashka saaran tahay go'doon siyaasadeed maadaama uu marka hore ka tilinayay subnational territory deegaan goboleed khaas ah oo aan ahayn sovereignty dowlad la aqoonsan yahay tii uu lahaa dowladda tabarta daran ee sirrirsan waxaanu ku leenahay tana tabarna daran sirrirsanna naxashina kortaala ayaamaheeduna ay tirsayiin matter of a time halka aan kaga baxo arinta qabqablaha dagaalka sida saddexda isugu kiin barbar dhigo waxaan galeynaa ninka la yiraahdo dictatorship-ka oo laba darajo ka sharaf badan oo ka sareeya qabqablayaasha dagaalka. A dictator is a political leader who possesses absolute power. ninka kaligi taliyuhu waa siyaasi isagoo hogaamiye waa loo ogoliyay maamule maha sidii kuwii hore waa hogaamiye wax allaale iyo waxa wadankaasi uu awood leeyahay gacanta midig ku qabsada. A dictatorship ninka la yiraahdo kaligi talisnimadu is the state ruled by one dictator or by a small clique. kaligi talisnimadu waxa weeye wadan maaha kani maamul goboleed iyo gobol magac been ah loo samaystay waa wadan caalamiya la aqoonsan yahay oo kaligi taliye ama koox uu hogaaminayo sida kolihii sare ee kacaanka ay wada maamulaan. The word originated as the title kelmadan asalkeedu kaligi talisnimadu waxay ka timi of the magistrate in a Roman republic appointed by Senate to rule the public in a times of emergency. waxay kelmadani ka timi nin qaadi ah oo u magacaabay Romankii jamhuuriyaddii Romanka u magacaabay hal qof oo laga soo magacaabay baarlamaanka si uu wadan u hogaamiyo waqtiga ay ka dhacdo ama dagaaladu ama aafo dabiici. halka ayay kelmadaasi ka timi. dictatorku wuxuu kaga sharaf badan yahay oo kaga duwan yahay ninka la yiraahdo qabqablaha dagaalka ama warlordka wuxuu ku shaqeeyaa nationalism oo ah ummad Soomaaliyeed ayuu yeedhaa eheego meel lama galo ama maamul goboleed sida kuwa Puntland kuwa ereyada kale meel kasta ay joogaanba waxa isku wada nooca oo kale waxayna ku dadaalaan inay ka dhex muuqdaan ummadaha kale inkastoo ay leeyihiin waxa ay labadu wadaagaan oo aan gadaal idiga sheegi doono. waxaa soo maray caalamka rag fara badan dictatorship-ka oo taariikhda kaga tegay ummadoodii wax wanaagsan iyo qaar burbur kaga tegay labadaba laakiin qabqabluhu aakhirkiisa ama waa la dilaa ama isaga oo xidhan oo darbaduub xidhan oo dadka hor fadhiya ayaad aragtaa sida gobolka Ogaadeen ama gobolka Soomaaliyeed ee Itoobiya wuxuu dambeeyay ee ka dhacay.
yaa ka mid ahaa dictatorada soo maray caalamka ee Hitler ninkii loo oran jiray Germany oo boqolkii dadku 730 ay shaqo la'aan yihiin wuxuu gaarsiiyay wadamada ugu taajirsan dhulka la yiraahdo autobanka ee highwayada caalamka ugu wanaagsanna waqtiga uu dhisay wuu warshadeeyay ciidankii ugu xoog weynaa ayuu sameeyay halkuu kaga tagay waa ogeydeen isagoo qaylinaya waddankaygii leh ayuu halka ka dhaqaaqay Stalin baa ka mid ah Soviet Unionkii oo Europe oo dhan ka dambeeyay ka dhigay dawlad super power Saddam Hussein baa ka mid ah oo waddan aan waxba oo lin dhaxyimi halkuu kaga tagay isagana waa ogtiin Gaddafi baa ka mid ah halkuu kaga tagay waa ogtiin Siyaad Barre ka mid ah oo Soomaaliya aad iyo aad u soo dhisay ama afahaato ama warshado ama aqoon ama jaamacado isna halkuu kaga tagay iyo halkuu ku dambeeyay waa ogtiin arrimaha ay qabtaan nimanka la yiraahdo kaliya taliyayaashu waxa ka mid ah ciidan qaran bay dhistaan ee ciidan heega ah ma dhistaan sida qabqablaha dagaalka wadooyinka ayay dhisaan halka kani uu daaraha isku haystaan islaamaha ama ay isku haystaan dadka gaboobay ama dad marxuumiina u joogooyinkooda ku qabsado qabqablaha dagaalku kuwan iyaga ayaa dadka wax u dhisaa ee waxba kama qaataan warshaday ka dhisaan way warshadeeyaan wadamada ay yimaadaan maadaama ay marka hore ummad madaxa kaga jirto sida kale ha u kharibnaadaan shaqa abuur ayay sameeyaan kaliya taliyayaashu ma ogolaadaan qof kale inuu maamulkooda soo farageliyo aan iyaga ahayn arrimaha ay wadaagaan labadu control media labaduba waxay iska shaabahaan qabqablaha dagaalka iyo kaliya taliyuhu ma ogola in warbaahintu ay gacantooda ka baxdo lagana sheego xaqiiqda dadka ay yihiin halkay ka soo jeedaan aabahoodii ahaa maxay ka soo qaban jireen halkay joogeen maxay gaadheen maxay ku fashilmeen jeelasha oo buuxsama ayaa labadaba lagu gartaa dilka oo bataa ayaa labadaba lagu gartaa dadka oo ka baqa inuu qofku uu ku dhawaaqo waxa maskaxda kaga jira oo bulshadu ay isu bedesho munaafiq ama qof cararay oo ka fakaday wadankiisii cult personality waxa ka mid ah oo bani aadamka ku soo baxaan inay dadka mar walba laga tuso iyadoo ciidan hareera cararayaan iyagoo meel joogo waaweyn iyagoo khudbadaynaya iyagoo ummad kale telefoon kula hadlaya waxaas oo dhami waa fake image waa shakhsiyad loo abuurayo oo aanu lahayn marka xaqiiqati maadana daqiiqado dhexdood ayay ku fashilmaan propaganda machine waxay samaystaan dacaayado raqiisa dad ku qaata malaayiin dollar sida tan heegada aynu dhex fadhino ee 40 milyan ee dollar ay ku baxdo inta isku reerka ah loo qaybiyo secret service ayay samaystaan dictatorshipku ama kaliya taliyuhu muxaabaraad culus oo dadka bajiya labada marka halka iska dhigno isa saara aynu galno leadershipka ama ereyga hogaamiye waxa arintan igu kalifay inaan duubo propagandadii laydugu waday ee heegadu samaysay ayaa arkay dad fara badan oo markay ka hadlayaan Muuse Biixi yiraahda hogaamiyaha Somaliland kelmadda hogaamiye wuxuu yahay baan idin sharaxaya labada hore wanaga idin sheegay waa qabqable ninka la yiraahdo leadershipku waxa weeye a leader is a person with a responsibility to influence a nation and directing them to achieve a set of objectives hogaamiyuhu waa qof mas'uuliyadi saaran tahay weyn oo soo jiita ummadda uu isagu xukumo una jiheeya inay gaadhaan guulaha iyo yoolalka ay ku socoto ummaddaasi wax isaga ku saabsan maaha ummadda ayuu mas'uul u yahay oo hogaaminaya jihaynayaana leader consults most expertise in his nation calaamadaha ugu waaweyn ee lagu garto ninka hogaamiyaha ah waxa weeye wuxuu la tashadaa 24 saacadood dadka ugu aqoonta badan leh wadanka uu ka talinayo hadduu waayana wuxuu ka soo amaanaystaa ummadaha kale ee meelaha jooga and trusts the areas of expertise isagu iskama qarta jiro wax walba ee iyaga laftooda ayuu ku kala sooraadaa meelaha ay ku kala takhasuseen aqoon-yahankaasi inay ka kabaan wadanka maadaama ay tahay wadanka sidii loo horumarin lahaa leadershipyada caalamka soo maray ee aanu xusuusano waxa ka mid ah ninka la yiraahdo Jamal Abdel Nasser waxa ka mid ah General de Gaulle kii Faransiiska ee Naziga la dagaalamay Churchill oo dagaalkii labaad dawladii ugu xoog weyneed ee Naziga ka badbaadisay aqoontiisu Ingiriiska iyo mustacmaradihii u lahaan jirayba Gandhi Hindiya ayaa ka mid ah Putin kan maanta Russia dib ugu soo celiyay caalamka markii lagu kala dhaqaaqay ayaa ka mid ah waa maxay sifooyinka lagu garto hogaamiyaha creative vision and focus on it waxay leeyihiin aragti dheer waa indheer garad halka ay Soomaalidu ka tiraahdo indha ku garaad la maaha beer cismaan dacis oo kor wareegaya maaha waxa uu muuqata nabadgeliyo dhaqaale horumar mujtamaca soo socda kiisa kale inankiisa ummadaasi ama inanteedu halka ay ku dambeyn lahaayeen set up a high performance team dadka ugu aqoonta badan leh ee ugu kartida badan leh mujtamacaas ayay ka dhigtaan wasiiro
iyo wixii kale ee hal maala ee soo raacaba. Keep the nation motivated. Dadkoodu waa dad hanuunsan maadaama cuntadii iyo cabidii iyo gurigii iyo degaankii iyo hooygii iyo caafimaadkii intiiba lacagta ay ka soo ururiyaan cashuurta ah ay iyaga dib ugu celiyaan. Dadku waa dad hanuunsan. waxyaabaha kale ee lagu garto hogaamiyaha waxaa ka mid ah courage, geesinimadaas oo maaha inuu dadkiisa u degdegleeyo afka cirka u taago. geesinimadaas waxa weeye marka uu go'aan u qaadanayo ummadiisu ay ku horumarayso inaanu indhaha ka laaban ummadaha kale ee ay tartamayaan. passion, inuu dareenka ummadiisa uu la dareemo maaha inuu isagu beero ku jiro uu keligii ka dhubto. covid-19 marka aafadaas oo kale dhacdo, dareenka ummadiisa inuu la dareemo, uu la gaajoodo oo uu la xanuunsado. humility, dhul isu dhigista ummadiisa iyo ku taagnaanta waxa ummadiisa ka soo jeeda maaha in ummadiisa caaga juglayn ku haya. trustworthy, in lagu kalsoonaan karayo oo uu qowl leeyahay. qowlku waa kelmadaha ugu waaweyn ee lagu garto hogaaminta. articulate purposes and goals, aftahama ayuu ku yahay xaqaa'iqa iyo yoolka ummadaasi ku socoto, una ka dhaadhicin karaa ummadiisa wax been iyo propaganda kuma dhex jiraan. admitting mistakes, waxaa lagu gartaa hogaamiyuhu marka khalad dhaco isaga ayaa usoo istaaga ee qof kale shalafkiisa ma sulo oo ma eedeeyo. isaga ayaa soo istaagada khaladkaas ayaa inaga dhacay. Churchill wuxuu taariikhdu isaamixi mayso haddii aan gacan qaado ninka Hitler la yiraahdo. integrity, milguu leeyahay maaha daar iyo qof beer uu nin marxuube ka dhintay iyo qof dumara ay suuqa isdhex jiidanayaan oo meesha lacag ka raadinayo. integrity ayaa lagu gartaa hogaamiyaha. ammaano ayaa lagu gartaa wixii loo dhiibto iyo wixii ummaddu u dhiibatay. kanalka waxba la isba dhiiban inqilaab baa yimid. Soomaalidu horey u tiri ninkaad kaba ka tolanayso kabihiisa la eega. wuxuu ka fogaadaa waxa nationalka kala kaxaynaya, nationalismka qoomiyadda ama ummadda waxa kala kaxaynaya ayuu iska ilaaliyaa. waxay la dagaalamaan musuqmaasuqa kor ilaa hoos iyagana iska bilaabmaa. waayo kalluunka qudunkiisu madaxu kasoo bilaabmaa Yamanta ayaa hore ugu mahmaaday. geela duqdiisu turturisay maxaad aarankiisana u malaynaysaa ayaa la yidhi. ninkii filosofarka ahaa ee faransiiska ahaa Lopo wuxuu yidhi dowladdu marka ay sirirto ama ay kooma gasho ee naxashka la saaro xataa dadka neefta ka guraya uma warhayso. ayaamihii keligii talisnimadu way soo dhawaatay. saddexda arrimoodna waxaan suuqin soo bandhigay dadka dhalinyarada ah inaan lagu khaldin ereyga hogaamiye la yiraahdo. hogaamiyuhu waxa uu ku dambeeyaa in taalooyin loo dhiso. hogaamiyuhu wuxuu ku dambeeyaa ummadiisu inay ummadaha kale ka soo dhex baxdo. hogaamiyuhu wuxuu ku dambeeyaa inuu naftiisa u huro ummadiisa. hogaamiyuhu wuxuu ku dambeeyaa inay dadku ha dhowto marka uu socdo loo sii duceeyo. dhammaantiin ummadda Soomaaliyeed Ramadaan mubaarak. waa mahadsantiin.